qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ugaasyo waxgarad nabadoono oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda uu ku sugan yahay dalka. waxa ayna baaq u jeediyeen midowga musharaxiinta oo mar kale ku dhawaaqay inay banaanbax ay ku qabanayaan Muqdisho. odayaasha dhaqanka ayaa ugu baaqay inay joojiyaan banaanbaxa ay sheegeen inay qabanayaan musharaxiinta dhibaatana ay u horseedin shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale madaxda dawladda Soomaaliya ayaa waxay u sheegeen odayaasha dhaqanka inay soo dadajiyaan doorashada dalka la doonayo inay ka qabsoonto. waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonnadii iyo waxgaradkii kulanka ka qayb galay oo arrintaasi ka hadlaya. dhinaca kale waxaa jirta amni xumo warabo ah la soo kutuba si aan dhibkaas u imaan waxaan leenahay wax barnaamij la yiraahdo laga yaalo yaan la sameeyay. nimanka mas'uuliyiinta Soomaaliya oo aan xilka shala soo qabtay amba hadda haaya lama rabo inay uga daraadaan dadka ee dalka kuwa la kala dhicinayo maalmo maslaxada lagu dhex jiro ajaanibta hawa dhibaato taas dada jira gurigooda ka adkayno gurigooda laga gacan hayo oo dadka ilmahooda laaya iyo gurigooda masaaso kala bulshada reer Muqdisho oo Soomaaliyeed oo in badan mudaharaad iyo kicin lagu baaqay inay iraado bulshadu hays dejiso. mudaharaad kii la yaqeen ma jiro, waa mudaharaad hubaysan oo marqaati leh oo 19 February kii ahaado kala madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dhammaan waxaan leenahay dadka wax tabanaya la fariista qaabila adinkana waxaan idin leenahay ra'iisul wasaare Rooble wuxuu maalin weediyay dhabarkaga yaan wax laga raadin murashaxiinta ra'iisul Rooble waa walaalkiin la fariista aqbala hadiidinina oo yeela danta dalka danteen magaalada Xamar midda ummadda Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha la fariista waxa weeye marka anigu shacabka la hadlayo wax la shacabka mudaharaadka diida mudaharaadka joojiya mudaharaadka ka baxa nin kursi doonaya yuuna idinku fuulin markuu salaanka uu fuulo daartana hoos uu idinka tuuri sidaa yeelan leh horta shacabka waxa soo haray siciidani nabara filaysay naxdin male ma baad in hargagarowana camirnaata Muqdishona duntuu doolaya. ugu dambeyn ayaa waxaa warbaahinta u aqriyay warmurtiyeed laga soo saaray shirkii ay ku yeesheen Muqdisho odayaasha Cabdicasiis Haraay. odayaasha dhaqanka Hawiye waxay ka xun yihiin rabshadihii ka dhacay Muqdisho ee ka dhashay baaqi musharaxiinta taas oo ahayd nasiib darro aan loo baahnayn waqtigan. odayaasha Hawiye waxay ku baaqayaan in la joojiyo dhammaan ficilada iyo hadallada lagu qalqalgelin karo bulshada caasimadda ee Muqdisho. 3 odayaasha Hawiye waxay cadeynayaan in aanan raali ka ahayn dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya deganaanshiyaha iyo caafimaadka dadka reer Muqdisho sida banaanbaxyo rabshadooyin iyo wixii la mid ah. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho.